labaad waxaynu insha Allah gali doonaa gabay leeyahdo anafo inta badan waxaan kaga hadalay amuurada u haboon qofka muxuu ahay islaamka ama qofka aadamiga wax badan oo quseeya jira ilaahay wuxuu noo abuurtay baa jirta waxaas waxa la doonayaa inaan fahamsanano gabaygan inta badan waxaan kaga hadlayaa xaaladaas leeynaga baahan yahay inaan ku fikirno islaamnimo iyo gaalnimo jira kolka laba astaamoodna way kala leeyihiin dadka qaar ba kala garan waayo islaamna astaantii gaaladan qaadanay saas ma sharafa soo khaldoy ma qofka wadadii loo carabay aan ka carabo soo waan baday lama oran jirin dadkan wax loo sheego Soomaa waxaan noola yaabaysan dadkan wax sheegeen markaas taasan bal ka hadli doonaa maanta cid walbana waa looga baahan yahay inay fikirka fiican haleesho ama se taageerto islaamnimada iyo gaalnimadu kala weeyaane mid waliba astaan baa jirto lagu aqoonaaye iimaanka iyo gaalnimadu kala weeyaane mid waliba astaan baa jirto lagu aqoonaaye afkana laga jasay waa waxaan uurka ka jirine afka laga jasay waa waxaan uurka ka jirine islaamnimo haddaan sheegano kuwaan dacoonayno ilaahi iyo rasuulkiisa waa inaan adeecnaye waa inaan dhammaan oofinaa amaradiisiiye aadaanka waynaan kacna oga waa beriye waa inaanay daayaantii sekadaadu garanaaye waa inaanayaantii sekadaadu garanaaye akalkeeda soon waa inaan ka afxidhnanaye arrafadana waynaan xajkii u intiqaalaaye arrafadana waynaan xajkii u intiqaalaaye waa inaan wanaagomiyaha ugu adeegnaye waa inaan ixsaan midhan iyo aamin noqonaye ummadeennu waynay noqdaan uliyo dirkeede waa inaan anfaca la iska qadin oon kolay tahaye nin waliba saagiisa waa inuu igraamaye waa inaan ammaan loogu darin ninkii falaye arxan laawe waynaada noqon eebo midhanaahe amni iyo haddaan nabadi jirin uun ku kala yaaciye aqaladu cidlay noqonayaan eega fiicaniye iska daa adduunaad heshiyo orya ku dhalaye adeerka rumaad badhintiyo abbahoo dhawaye adeerka rumaad badhintiyo abbahoo kalaye adeerka rumaad badhintiyo abbahoo kalaye ibliis talada kula qaybsada wuu koloshaye oo faham markuu kugu dhufto ku istareexaye awaare iyo boodh lalama simo ubaxageedaye aakhiro ninkii khayr fala loo abaalgudiye ifka waxaad samaysana dib baad u arki doontaaye wax lanoo abuurtaa jiriyo shay ujeedaaye isagoon inin yari ka jirin oon arlada joogin
sida loo amaamuday intuu eegi kari waayo aqoon iyo garaad male ninkii eebbe caasiyaye aqoon iyo garaad male ninkii eebbe caasiyaye mar haddii asle in loo dhigo ereya loo sheegay mar haddii asle in loo dhigiyo hay-adaha diinta asaraarku kama juusayiyo maan akhbaar heline isagoo arkaayuu dalbaday ololka naareede ilmadiyo tawaawucuna waa eelka dabayaale inkastuu adduunyada kibro marku taagleeyo agaradda maxaajadu marbay ku afrabeshaaye haddaan ilba laga baqanayn anafo waa ceebe aasay haddaan lala gafayn aragga ruuxiisa oon ilba laga baqanayn anafo waa ceebe ummad yahay ammaanaan sidna eeduwaa belowe ibtiliyo wixii xuma ku jira abudka dheeraado ibtiliyo wixii xuma ku jira abudka dheeraada ninkii beloysheeda uu jira ma aloosaya ehebta iyo waanada sidii abbe ugu sheega ajar iyo sawaaba jiru eebbe idin siine ehebta iyo waanada sidii abbe ugu sheega adimada kolaad kaga dhigtaan aada isugu hawlo adimada kolaad kaga dhigtaan aada isugu hawlo taas in yar haddaan raacino qur-aanka maxaa ku jirtay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum inta badan gabayga waan isku fasilaa iyo qur-aanka oo waa inuu qur-aanka ilaahay la socda hadalkaad odhanayso maadaama dee waxaan xambaarsanahay ama ummadda u tabiyey ugu badane waxaa laga yaabaa bulshada qaarkeed inay suugaanta igu barteen laakiin aniga shaqadaydu waa dee diinta waa dacwadii baynu ku wadnaa suugaanta marka ujeedda waxaa weeye eegay maxay ahayd aayadda qur-aankiina yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naar macnaha kaasi waxay ku tusaysaa kolka naftaada aad isku daydo inaad ilaaliso nafta walaalka iyo nafta dadweynaha maxaa iga galay maaha inaan wacdido la hadasho waaniso sidaad u sheegi kartaba uu sheegto fiidmada iyo belada u aloosiyo sidaad uga saarto ayaa markaa kula gudboon marka aad tahay qof caaqila ama mas-uula saasna waa arrin le inuuga baahan yahay gabaygaana maanta intaa ayaan ku soo muxuu ahaaye gunaanadnay oo la yidhahdo magaciisa anafa waa ceeb marka bulshada daawanaysa ama dhegaysanaysa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan jecel lahay inaad nala wadaagtaan wixii wanaagsan wixii talooyin aadna siisaan oo ka wada qayb gallo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu